waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامجكي كبر هوذا واد كداوتان تيفي قرنكا جمهورية الصوماليلان راديو هرقيسة waxaynu ku soo jirnay aynu soo dhameynay cutubka lixaad casharkiisii koowaad iyo casharkiisii labaad. maanta waxaynu gelaynaa cutubka lixaad casharkiisii saddexaad baynu maanta markaa qaadanaynaa. waxaynu kaga soo hadalnay hal xidhaale oo waxaynu ku soo qaadanay hal xidhaalayaashii iyo qaybihii hal xidhaalaha iyo waxyaalaha hal xidhaalu micnihiisu yahay iyo waxyaalaha aynu adeegsano hal xidhaalayaasha ayaynu ku soo qaadanay. okay hal xidhaale jirabeedkii ugu dambeeyey ayaynu soo qaadanay oo ahaa qaabka hal xidhaale jirabeedka loo isticmaalo iyo wuxuu hal xidhaale jirabeedku yahay baynu soo qaadanay. markaa maanta waxaynu qaadanaynaa waxa loo yaqaano hal xidhaale maanseed. waaya hal xidhaale maanseedku waa qayb ka mid ah hal xidhaalayaasha ama waa afartii qaybood hal xidhaalayaashu qaybsamayey qaybtiis ugu dambeysay weeyaan. taasoo aynu kaga hadli doono waxa uu yahay hal xidhaale maanseedku sida loo adeegsado hal xidhaale maanseedka yaa adeegsada inta badan hal xidhaale maanseedka yaa adeegsada. okay haddaba si aynu markaa aynu bal cashirkeena aynu dulucdiisa u tagno intaynaan u gelin hal xidhaale maanseedka bal yar aynu dul marno dulucda ama ujeeddada aynu ka leenahay barashada hal xidhaale maanseedka. waaye dulucda casharku waxa weeyaan kadib markaad cashirkan dhigato ee aad qaadato waa inaad garan kartaa kow barashada hal xidhaalaha waa inaad garan kartaa barashada ama aqoonta hal xidhaaluhu waxay tahay hal xidhaaluhu inaad si fiican u baran karto aad u fahmi karto waxa loo yaqaano hal xidhaale. qodobka labaad waa inaad garan kartaa qaybaha kala duwan ee hal xidhaaluhu leeyahay ama hal xidhaalayaashu ay leeyihiin. hal xidhaalayaashu waa dhowr qaybood baynu horey usoo sheegnay qaybaha hal xidhaalayaasha kabacdina waad garan kartaa qayb walba oo ka mid ah hal xidhaalaha marka ay timaado ama aad aragto waa inaad fahmi kartaa garana kartaa. qodobka saddexaad waa inaad furfuri kartaa waa inaad garan kartaa ama aad fahmi kartaa furfuridda hal xidhaalayaasha waa inaad markaa hal xidhaalaha aad fahmi kartaa oo markaa aad furfuri kartaa waxa loo yaqaano hal xidhaalaha. qodobka afraad waa inaad garan kartaa adeegsiga hal xidhaale maanseedka. waanta casharkeenu muxuu ahaa hal xidhaale maanseed buu ahaa markaa waa inaad garan kartaa ama aad fahmi kartaa adeegsiga hal xidhaale maanseedka markaa waa inaad markaa aad fahmi kartaa. maadaama aynu ka hadlayno waxa loo yaqaano hal xidhaale maanseed waxaynu su-aasha markiiba aynu maskaxdeena ku soo dhacaysaa waa maxay hal xidhaale maanseedku waa maxay. haddaynaan ereygan fahmin aynu ka hadlayno oo aynaan meel ku tiirin hadhow marka cashirku dhammaado waxa laga yaaba ardaygu in isweydiiyo awal wixii aynu qaadanaynay muxuu ahaa hal xidhaalo awal muxuu ahaa ama hal xidhaale maanseedku muxuu ahaa. markaa si yaroo fudud hal xidhaale maanseedku waa habka ugu sarreeya ee hal xidhaalayaasha waa madaxa ama ka ugu sarreeya hal xidhaalayaasha wey. markaa waa habka ugu sarreeya hal xidhaalayaasha waxaana uu gaar u yahay hal abuurada. had iyo jeer inta badan hal xidhaale maanseedka waxaa adeegsada oo isticmaala nimanka loo yaqaano hal abuurada ama dadka hal abuurada leh
ayaa isticmaala kuwaasoo inta badan ku baanaya ama awooddooda aqooneed ay u leeyihiin dhaqanka iyo bulshada kusoo bandhiga marka qaabkee baa loo isticmaalaa ama habkee baa loo isticmaali karaa halxidhaalamaanseedka waxaa la doonayaa halxidhaalamaanseedku inuu lahaado hab iyo dariiq loo isticmaalo oo aad fahmi karto markaaba ayaa lagaa doonaya waayahay haddaba halxidhaalamaanseedka waxa su-aal la isugu weydiiyaa maanso halxidhaalamaanseedku gebigiisuba waxa weeyaan waa su-aal lagu weydiinayo laakiin iyadoo maanso ah laguu dhiibayo markaa laguu soo gudbinayo ama gabay ha haato ama maanso gaaban ha noqto ama hadba hal abuurku sida u matelayo unbay ku xidhan tahay laakiin adiga waxaa lagugu soo gaadhsiinayaa maanso waxaana lagaa doonayaa inaad uga jawaabto adiguna maanso kale maadaama maanso wax lagu weydiiyey jawaabtiisu hadal noqon mayso tiraab noqon mayso maxaa lagaa doonayaa adigu inaad tix kaga jawaabto markaa tixdii lagu weydiiyey ay sarbeeb tahayd inaad adiguna tix kale oo si sarbeebaysan ugaga jawaabto markaa halxidhaalamaanseedka waxa su-aal la isugu weydiiyaa maanso waxaana looga jawaabaa maanso kale intaas ayaa waxaa loo yaqaanaa qaabka la isu weydiiyo halxidhaalamaanseedka iyo qaabka markaa looga jawaabayaa labaduba waa inay haataa markaa qaabkii halxidhaalamaanseedku lagu yaqaanay iyo dariiqu u mari jiray markaa ayaa lagaa doonaya haddaynu sharaxaad guud ka yara bixinno cidda isticmaashay iyo qaabkay u isticmaaleen iyo abwaanadii isticmaalay iyo siday isugu jawaabeen balin yar tusaalayaashan aynu ka qaadanno waayahay haddaba aan soo qaadanno qaar ka mid ah abwaanada soomaalida oo su-aal isku weydiinaya halxidhaalamaanseedka qaar kalena ugu jawaabayaan maanso inaga nidhi halxidhaalamaanseedka sidiisuba waxa weeyaan in abwaankaasu uu ku soo jawaabo uu su-aasha ku weydiiyo maanso abwaanka kalena uu ugu jawaabo markaa maanso isagoo ku furaya halxidhaalihii lagu weydiiyey markaa bal tusaalahan eeg haddaba abwaan xasan maxamed qalinleh isagoo isticmaalaya halxidhaalamaanseedka waxa uu su-aalay sababta xayawaanka jirjirooluhu isugu ekaysiiyo hadba meesha uu joogo waxaana uu yidhi macnaha hadda waxaynu halkan ku haynaa maanso halxidhaalo ah oo abwaanka la yidhahdo abwaan xasan maxamed qalinleh uu ku weydiinayo sababta xayawaanka loo yaqaano jirjirooluhu xayawaankan la yidhahdo jirjirooluhu waxaa laga yaabaa inay soomaalidu u taqaano magacyo kalena inuu taqaano laga yaabaa xayawaanka loo yaqaano jirjiroole waxaa laga yaabaa inay soomaaliduna u taqaano haddana magacyo kale inuu taqaano oo laga yaabo in magacyadaa markaa isweydiiyaan oo waxaynu u naqaanaa jirjiroolaha meelaha qaarkood waxaa loo yaqaano roor baa la yidhaha roor meelaha gobollada qaarkood roor baa looga yaqaanaa meelaha qaarkood waxaa laga yaqaanaa iskojiye waxaa kaloo loo yaqaanaa marka la mid maaha wax weeyaan waxaa kaloo loo yaqaanaa waxa loo yaqaano geel kaga cabaadis intanba waxaa loo yaqaanaa magaca jirjiroolaha xayawaanka loo yaqaano jirjiroolaha ee abwaanku weydiiyey intan qayboodba isaga ayaa iska leh jirjiroole marka koowaad waxaynu halkan ku qaadanay jirjiroole roor baa meelaha gobollada qaarkood looga yaqaanaa iskojiya loo yaqaanaa geel kaga cabaadisna waa la yidhahdaa marka waa xayawaan yar oo 4 din leh oo inta badan wuxuu u soo egyahay waxa weeyaan ardaygu haddii aanad waxaan hore u aragba xayawaanka la sheegay arag wax laga yaabaa inay kugu noqoto markaa arrin adag inay kugu noqoto waa xayawaan markaa 4 din leh oo 4 din xayawaanka 4 din ku socda iyo dib yaro dhuuban buu leeyahay inta badanna hadba geedka uu saaran yahay midabkiisa iska dhiga hadduu dhulka marayana hadba ciidda uu joogo ayuu midabkeeda isu yeelaa markaa aan ku noqono markaa cashirkeennii abwaankaasu markaa wuxuu weydiinayaa bahalkaasu sababta uu isugu bedelo midabkiisu isu ekaysiiyo hadba meesha uu joogo ayuu weydiinayaa isagoo laakiin ku weydiinaya qaabka su-aal ayaynu markaa halkan ka eegi doonaa markaa abwaankaasina waxa uu yidhi jirjiroole aan tamar lahayn tol iyo gaashaana wuxuu tamashlalluuduhu arlada sii tiiqtiiqsadaba hadba wuxuu tudhaale u socduu lugaha taageerto tiro midaba uu leeyahoon looga taag heline tiro midaba
uu leeyahaan looga taag heline wuxuu tuutayaasha u bedelo maritix soo baadha. micnaha abwaankii hadda wuxuu soo qaatay jirjiroolaha laftigiisa soo qaatay socodkiisii buu tilmaamay haye wuxuu tilmaamay isbedelka dharka ama midabkiisu isbedelaya buu tilmaamay. markaa abwaanka waxaa hadalkii waa sarbeeb waxaana lagaa doonayaa sababta jirjirooluhu uu marba u bedelo midabka uu leeyahay uu markaa u bedelo. markaa abwaankaasu gabaygaa markii uu tiriyey waxaa jiray abwaan kale oo la yidhaahdo haddaba abwaan cabdiwahaab bashiir sheekh cumar oo ka jawaabay halxidhaalahaas. ninkan oo isna abwaan kale ayaa isna wuxuu kaga jawaabayaa halxidhaalihii buu ka jawaabayaa isagoo sheegayana sababta jirjirooluhu midabadiisa u bedelo. wuxuu yidhi hore waxaynuu soo sheegnay jawaabta aad bixinaysaa waa inay noqotaa mid maangal ah oo micno ahaanna jawaab u noqonaysaa halxidhaalihii lagu weydiiyey. su-aashaas waa inay noqotaa mid maangal ah micno ahaanna jawaab u noqonaysaa halxidhaalihii lagu weydiiyey. marka abwaan cabdiwahaab bashiir cumar waxa uu yidhi isaguna noolaha arlada teedsanee tiro xadkii dhaafay noolaha arlada teedsanee tiro xadkii dhaafay ee tamar garaad iyo tayaba kala tog roonaaday mid kastaba tubteedaa la baray toosta nololeede jirjiroole wuxuu toobka u bedelo tuutihiiyo shaadhka waa inaan tallaabada la arag tabiyo xeeshiisa. abwaankaas wuxuu si fudud oo maangalah oo micnihiiya uga jawaabay sababta uu jirjirooluhu midabkiisa u bedelayo. waxaana si fiican kuugu qeexaysaa tixda u dambaysa ee uu maansada abwaanku ku soo gebagabeeyey waa inaan tallaabada la arag tabiyo xeeshii. xayawaan walba xagga hore wuxuu kusoo tilmaamay markaa in abwaankii hore in xayawaan kastaba uu la baray tubta nolosha qaabka u noolaan lahaa uu calafkiisa u raadsan lahaa uu cadowgiisa uga gaban lahaa uu magaranaysa hadii waxa weeyaan waa xayawaan haddana wuxuu yaqaanaa cadowgiisa halka laga galaa u yaqaanaa cadowgiisa wuxuu yaqaanaa sida uu calafkiisa ama dheeftiisa u doonto uu cuntadiisa u doonto ayuu yaqaana. markaa kadibna abwaanku wuxuu si hufan uga jawaabay maansada halxidhaale maanseedka ah isagoo sheegay sababta jirjirooluhu uu markaa u bedelo midabkiisa. marka hadhow haddii su-aashu ay kuu timaado waxaa fahmi kartaa sababta uu jirjirooluhu u bedelayo midabkiisa. hadda way kuu caddahay oo waxa weeyaan waa inaan tallaabada la arag tabiyo xeeshiisa. micnaha waxa weeyaan waa habkii ama noloshii uu naftiisa ku badbaadin lahaa ama uu cadowgiisa kaga dhuuman lahaa tabiyo xeel wax kusuu isku daraba kabacdina si aan looba arag waa kan iska dhigayaa midabka geedka uu saaran yahay ama dudumada uu saaran yahay ama halka uu marayo markaa dhagaxa uu dul saaran yahay ayuu markaa isu ekaysiinaya. isla mar kale wuxuu abwaan xasan maxamed qalinleh halxidhaale maanseed ku weydiiyey sababta awrku u qooqo kaliisha. mar labaad ama mar kale abwaan xasan maxamed qalinleh wuxuu halxidhaale maanseed ku weydiiyey sababta awrku u qooqo kaliisha. awrka waa naqaanaa waa baarqabka geela. mar haddii awr la tilmaamay oo qooqay waa baarqabkii geela weeye. markaa awrtu geel way fara badan tahay hadda waxaa laga hadlayaa waa baarqabkii geela awrkii geela waa laga hadlayaa. markaa kaliishu waa xilli ka mid a xilliyada aynu markaa naqaano oo ah xilliyada roobka la saadaalinayo jilaalkiina dhammaaday roobkiina aanu weli diin dhexdooda ayaa la yidhahdaa kaliil. waana xilliyahadii jir waxay ugu bixiyeen dadka reemiga arrintaa loo qaatay waa xilliyada cadceedu aad u kulushay. marka kabacdina su-aashii ayuu sidan u dhigay. marka abwaankii wuxuu yidhi tabaalaha kaliileed dadkoo wada tabcaanoobay tifiq roobka oon odhan rajana taabka lagu haynin tulud geela kii jiray ma oga goorow tixdi'iye telefoonka ugu sheeg ratigu tiririg roobaade halka awrku taarkaa ka helay mari tix soo baadha. halkaa waxaa kaaga muuqanaysaa iyadoo xilli kaliilad lagu jiro oo dadkii tabcaan yahay. dadkeena xoolodhaqatada xilli kaliish waxaa lagu yaqaana waa biodhamis waa aroor waxa weeyaan waa hawshu aad bay ugu badan tahay. xilligaas oo weliba uu sheegay abwaanku inaan tifiq roob aanay diin weliba rajo badanna aan laga qabinoo aan la filayn inuu xilligii roobku weli taagan yahay.
tulud geela kii jiray ma ogaa gooru tixtiye ka xoolaha la jooga ama geel hala joogo ama adheer geel buu tilmaamay laakiin ninkii xoolo jirka ahaana aanu ogeyn goor roob u dii doono oo markaad la sheekaysto kunayo allahu aclam kaliil baa lagu jiraayo wallaahi goor uu di'i doono la garan maayo hadalla caynkaas uu markaa isaguna uu dhigayo halkaa markay marayso ayaa awrkii baarqabkaha ee geela ku jiray ayaa wuxuu fariin siinayaa geelii uu ku jiray buu siinayaa awrkii baa qooqaya kabacdina awrku hadduu qooqo xooluhu sidoodaba waxaa la yidhahdaa waa xilli qooq iyo raxmad qooq ama naqooq ama barwaaqo qooq saa doonta u dhehe waa xilli isagu xilli buu iska leeyahay telefoonka ugu sheegay ratigu tiririg roobaade micnaha roob buu saadaaliyo sheegay halkuu awrku taarkaa ka helay mari tix soo baadha waxaa lagaa doonayaa awrkaasu waxa uu dareemay waxaa lagu yaqaanay barwaaqada in xooluhu labkiisu ay qooqaan oo markaa ama ay markaa barwaaqada markaa ay ku baraarka iyo barwaaqada markaa lagu yaqaano qalaadkooda iyo sariyadkooda waxaa markaa awrkanu meesha uu ka helay baa markaa lagaa doonaya haddana mar labaad abwaan cabdiwahaab bashiir cumar oo mar kale ka jawaabay halxidhaalaha sheegayna sababta awrku kaliisha u qooqo waxa uu yidhi abwaankii markii hore uga jawaabay xasan ayaa haddeerna mar labaad uga jawaabaya maansadiisii kale waxa uuna yidhi marka abwaankii xidigaha hawada taagan iyo toobiyaha laydhka xidigaha hawada taagan iyo toobiyaha laydhka tacliinta xilliga lagu baadhayaa waa tix gooniye wuxuu awrku taarkaa ka helay tiixa iyo roobka xilli loo turshiu leeyahoon cidi ka taabayn milaygaa tilmaamo tusku laydha ka hayaaye wuxuu tilmaamay abwaankii inay jiraan saadaal ama xidigas ha noqoto ama ha noqoto hawada laydha ama dabaysha dhacaysa ha noqotee inay awrku dareemay isbeddel cimilo oo dhacday oo tilmaamaysa inay naxariistii rabbi soo dhowdahay markaa waxa uu abwaankii tilmaamay markaa in awrkii ogaaday saadaashii hawadu inay isbeddeshay oo xilroobaadkii markaa u muuqday marka waxaa laga yaabaa inay halkan ka dhalato su-aal odhanaysa waa maxay sheeg sababta awrku ku ogaaday ama muxuu awrku ku ogaaday inay xilligii roobka tahay ma waxa u sheegay ma taarkaa u sheegay ma dhaqanba u sheegay ma xidigba u sheegtay ma hawada u sheegtay maxaa u sheegay awrkii dee si fudud abwaanka ayaa tixdiisa ku muujiyey milaygaa tilmaamo tuskuu laydha ka hayaaye ereygaasaa wuxuu caddaynayaa inuu isbeddelka hawada awrku la socdo halkaana uu ka ogaaday markaa in markaa cimiladii ay isu beddeshay marka waxaa jira abwaano badan oo dhammaantood aan la soo koobi karin oo ka maansooday halxidhaala maanseedka ka tiriyey tixa fara badan aan soo qaadano waxaa jira abwaano kale oo isticmaalay halxidhaala maanseedka sida abwaan maxamed cismaan budin waxa uuna yidhi abwaankuna isna wuxuu ahaa abwaanada ka mid ah tixihii markaa halxidhaala ah inkastoon tixiisan halxidhaala ah aanu jirin abwaan kale oo weli uga jawaabay laakiin isagiina aanu furin ayuu abwaankuna markaa tixdan ayuu markaa ku weydiiyey waxa uu yidhi dhul waxayska roobaad ka da-ay diriirna xaadxaadhay oo aan xareed laga helayn waa xujaya sheega dhul waxayska roobaad ku da-ay diriirna xaadxaadhay oo aan xareed laga helayn waa xujaya sheega muslin soor xalaal looga dhigay nebina xaaraanta xukunkuna sidaa uu ku dhacay waa xujaya sheega xiise iyo jacayl waa qalbiga xulashadiisiiye xadka labada kala saari kara waa xujaya sheega xidigaha sagaalkee dhacdada lagu xisaabayo xuduntooda boqor looga dhigay waa xujaya sheega abwaankuna markaa si fiican buu uga hadlay isaguna inuu markaa halxidhaalihiisa inkastoo aan weli cid uga jawaabin waxaa kaloo isticmaalay abwaan cumar aw jaamac samatar waxa uuna yidhi ninka labada shay ee bahay shaarac ugu uumay hadduu malagu shabagii daro oo shalay ka leexaysto ninkii maydhigiisaa shirraba sheeg haddaad garato haddii shidho laguu qalo adoo gaajo shidanaya uuna shay xanuun ahi ku hayn sharaca lee meelna
oonad hilibkii shiilnaa cunayn sheeg haddaad garato kana erey badan oo sarbeeba ayuu isticmaalay abwaankanu markaa haddaynu yar dul marno casharkeennii casharkaas wuxuu ka hadlayey waxa loo yaqaano halxidhaalamaanseedka halxidhaalamaanseedkaasuna waxaa la doonayaa inuu ardaygu markaa yaqaano qaabka halxidhaalamaanseed la isu weydiiyo waxaa la doonaya inuu yaqaano yaa isticmaala halxidhaalamaanseedka ee badanaa isticmaala taana waa lagaa doonayaa waxaa lagaa doonaya inaad fahanto sarbeebta ku jirta halxidhaalamaanseedka inaad markiiba garan karto haddaynu eegno howlqabadkan u dambeeya aynu hadda qabanay waa ardaygu waa inuu la yimaada howlqabad dheeraad ah si uu u furfuro maskaxdiisa una ogaado inuu ka fahmay casharkii wax badan shaqo guri howlaha idinkaa qabanaya shaqo guri weya weydiinta waa maxay halxidhaalamaanseedku waxa weeyaan 118 ilaa 119 bejka ah ayaad ka raaci doontaan falaqee ujeedada fiicadan hoose waa kuwaynu cashar ku soo qaadanay goobo geli jawaabta saxa ah iyadana adaa lagaa doonaya inaad ka soo shaqayso waa howlqabadka aan kuu diray ee aan ugu talagalay inaad markaa ku soo gebagabayso casharkaaga haddii alla ka dhigo halkaa waxaynu ku dhammaaday casharkii cutubkii 6 ayaynu halkaa ku soo gebagabaynay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno